libaanada koongareeska Mareykanka ka tirsan Ilhaan Cumar ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii maalintii shalay ay ka soo qayb gashay mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeeday go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare iyo aqalka koongareeska Mareykanka kaasi oo lagu mamnuucayay inay dumarku iska soo tuuri karaan ama iska soo xaqi karaan ilmaha calooshooda ku jira. haddaba Ilhaan Cumar oo ah gabadh Soomaaliyeed boqolkiiba boqol Muslim ah oo guursatay nin Kristaan ah sanadihii la soo dhaafay halka iska furtay ninkeedii oo ahaa nin Soomaaliya ayaa haddeer u ololeysay markii xabsiga loo taxaabay ka hor ololaheeda wuxuu ahaa inay dumarka loo ogolaado inay iska soo tuuraan ilmaha haysada sharci darrada ku qaadeen. Ilhaan Cumar waa qof noocay ah ma waxa ay noqotay qof Kristaan ah ama haysata diin kale oo muslimada ka baxday. markii hore waxay u ololeysay inay iskuursan karaan dadka isku jinsiga ah taasi oo ah dhaqanka qowmiyadnimada. haddaba muuqaalkan ayaan ku faaqidi doonaa balse waxaan ka codsanayaa marka hore daawadahayga qiimaha badan inaad YouTube-keena subscribe dhahato video page-keena follow soo dhahdo. waad ku mahadsantahay la jaanqaadka ee qurux badan ee nolol joogta aad iyo aad baad ku mahadcelinayaa. haddaba Ilhaan Cumar ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii maalintii shalay ay ka soo qayb gashay iyadii 15 kale oo koongareeska Mareykanka ka tirsan banaanbax la dhigayay kaasi oo laga soo horjeeday go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka taasi oo lagu mamnuucay inay dumarku gabi ahaanba iska soo xaqi karaan ilmaha calooshooda ku jira nooc kasta ha ahaadee. Ilhaan ayaa banaanbaxyaasha ayaa sheegayay inay ambadhigay ka hadlayay inay dadku ama dumarku iska soo xaqi karaan ilmaha calooshooda galay ee sharci darrada ay ku qaadeen macnaha gogolmada gogoldhaafka ay ku qaadeen. haddaba dhaqankan waa mid diinta islaamka ka baxsan hanan haba yaraatee ee ku ahayn diinta islaamka wax ka mida aba ku jira balse Ilhaan Cumar oo ah qof muslina qabayna nin muslina oo Soomaaliya ayaa ninkii Soomaaliga inta iska furtay sanadii la soo dhaafay ayay guursatay nin Kristaan ah oo Mareykan ah cadaan ah kaasi oo ah la taliyaha arrimaha siyaasadeed dhinaceeda balse culimada Soomaaliyeed ee dood badan ka dhex abuurtay arrintan. ugu dambeyntii Ilhaan Cumar ayaa dad badan oo ka soo horjeeda diinteena muslimka ee suuban lagu arkay iyadoo sameynaysa mararka qaar waxa la arkay iyadoo ay xambaaraysa kadib waxay ololo fiican u gashay inay rag iyo dumarku midkood isku guursadaan. macnahayga waxaan ka wada inay raguna isku guursan karaan dumarkuna isku guursan karaan taasi oo ah dhaqan shaydaan ama qowmiyadnimo ta oo diinta islaamka meel kaga qornayn kana soo horjeedo oo diinta islaamka uga shahay in la khaarijiyo qofka ku dhaqmo waxaas oo kale. Ilhaan haddana waxay u ololeynaysaa inay dumarku iska soo tuuri karaan ilmaha ay ku qaadaysa sharci darrada. subxaanallah. ugu dambeyn xabsiga ayaa loo taxaabay Ilhaan Cumar maxayse kula muuqataa adiga ka daawanaya muuqaalkan fikradda Ilhaan Cumar. dhaqamada sidan u faashaxun waa kuwii Kiristanka waxa ay qaadatay diinta Kiristanka oo wax la beeray oo ka xaysay ninkeedii. ummadda waxa ay la yaaban tahay gaal iyo islaamba maadaama ay Soomaalidu tahay dad boqolkiiba boqol muslima dadkoodana ay ku jirto diin wanaagsan oo dadka ugu badan ee diinta haysta ah ama dad boqolkiiba boqol muslim ah inay Ilhaan Cumar laga soo doortay haysan u dhaqanto waxay nagu tahay dhagxumo sharaf darro. laakiin Ilhaan Cumar maxaad u rajeynaysaa maxaad si adigu oo kula talin lahayd muuqaalkan commentigeena wala wadaag saaxiib waxaan codsanayaa inaad muuqaalka leeg saarto filan dhahdo fikradaadii aragtidana had nagu wadaagto commentiga waad ku mahadsantahay si qurux badan ee nolol joogto.